habeenku habeen kale oo Liverpool gurigeedu ku madoobaaday ayuu ahaa shadaadintu waxay tiri casaanka kaliya England ka jira waa annaga Liverpool tan iyo Crystal Palace markii ay basaastay jugtu way ku socotaa Islot aqliyadiisu kama shaqayn ilaa iyo hadda 5 kulan Premier League maca jaambaha maradii way dhacday mar kalena waxay joogtaa xaajadu jadaadud sileeyad rooqe maalin kale oo madow oo gurigii Liverpool gabal baasu dhacay United ayana guul muhiim ka gaadhay Liverpool kadib kulan xiiso badnaa kaasoo si gaar ah isha loogu hayay qalcadda Anfield ay ahayd xiniyihii kooxda Liverpool iyadoo natiijadu ahayd 2-1 taasoo saameyn weyn ku yeelan doonta tartanka horyaalka iyo kalsoonida kooxda United ayana si degdeg ah u heshay goolka furitaanka daqiiqadii labaad markii Brian Mbombo uu kubad si hufan uga dhameystiray weerar rogaal celis isagoo ciqaabay difaacyada Liverpool oo seexday goolka hortiisa iyagoo dajiyay habka ciyaarta waxaana bilaabmay cadaadis iyo weerar joogto ah oo labada dhinac kaliya Liverpool haddii aad rabto inaad garaacdo daba mari kubadda oo kubadaha dhaadheer la dheel kadibna Van Dijk markhaati ayuu ku ahaan doonaa Liverpool ayaa markii dambe la wareegtay kubadda iyadoo lagu yiri waxaad natiijo ku keeni karto ku keen waa ka baloonige iyadoo isku dayday inay hesho barbardhac fursado dhowr ah ayay heleen oo ay ku jirto kubad birta ku dhacday balse difaaca United iyo goolhaya Jimenez ayaa u adkaystay si heer sare ah oo yiri maalintani waa maalintayadii Reds ayaa ugu dambeyn keentay barbardhaca qaybta labaad hase yeeshee farxadaasi ma aysan jirin daqiiqado yar kadib habeenka meel lagu sii wado iyo marka gabal baasi ku dumay waxa lagu gartaa kuwii khaladaadka dahabiga aad ka heli jirtay inay habeenadani bilad sharaf kugu qaataan Harry Maguire ayaa madax xoogan ku dhaliyay goolka labaad kadib laad xora taasoo mar kale keentay inay United hoggaanka qabato galabtaana uu yiri iyo fiidka Harry Maguire anigu waxaan ahay Harrygii guusha anigu waxaan ahay Harrygii hore u khaldami jiray hadda say saxay markaas kadib Liverpool ayaa si xoog loo weerar tagtay iyadoo raadinaysa goolka labaad balse United ayaa si geesinimo leh u difaacatay ilaa dhamaadka Harry Maguire gool buu dhashaday 3 dhibcood buu kooxda u dhiibay hase yeeshee sidii Salah iyo sidoo kale Isaac ay u daba mari lahaayeen falowgeeda waa la geli waayay waa maalintii fulaygu oo fiinta fuulay kadibna cid daba marta la waayay markii siirigii u dambeeyay la yeeriyay taageerayaasha safarka ku yimid ee United ayaa si weyn ugu dabaaldegay qalcanta Anfield oo yiri casaan aan ahayn annaga ma jiraan natiijadan ayaa mid Man United u keenaysa kalsooni cusub halka Liverpool ay dib u qiimeyn doonto sida ay wajahayso kulamada waaweyn ee soo socda iyo meesha laga soo galay wax kale ma Crystal Palace maalintii ku dhigtay nimankan oo kaliya ayaa Islot shaxdiisu wareertay United oo naqaynayna shax gaar ah ku ciyaarto ku dhibanayd xaaladeedu iska qasnayd way isugu toostay maalin kale oo Robin Amorim aynu arkayno inuu qaab ciyaareedkiisa kooxda ay tahay mid uu ku faa'iiday kulankii Chelsea baynu ogeyn oo shaxdan sidoo kale uu la yimi habeen kale baynu arkaynaa sidoo kale Mbombo isaguna uu yahay mid ka faa'iidaystay wixii lagu shubay iyo wixii Amorim ku yiri oo ahayd kubadaha dhaadheer sida looga faa'iideysanayo iyo Van Dijk dhaqaaqiisa iyo Van Dijk in aanu ahayn xiddi kubadaha la dhinac dhigo haddii taad ku samayso عليها وكداي كلن كسي gaara markaynu isu dul taagna hadaba 18 shuud ay turtay Liverpool 6 ayay ku aadisay 12 bay turtay United 4 ayay ku aadisay kubadaysashadu waa 360 kooxda Liverpool 730 kooxda Man United 475 baas oo ay kulan ka sameysay Liverpool 409 baas ayaa u hirgalay 229 baas oo ay United sameysana 200 ayaa halkii loogu tala galay ku dhamaaday taakaladu waa hal dheeri waa 13 iyo 12 faawaladuna waa kooxda Liverpool 8 iyo 14 ay kooxda Man United sida qoorciideedka ay dhul chief u ahayd koornayaashu waa lagu kala guuleysan ogyahay markay sidan kulanku xaalku yahay 9 koorno ay Liverpool heshay waxba kuma keenin halka United 4 ka heshay 3 dhibcoodna ay kula hooyatay xidigaha si gaar ah markaynu isu dul taagno Diego Dalot 46 taabasho wax shuuda muu sameyn 22 baas 3 taakal iyo 3 loolan oo guuleystay gabi ahaan khariidada maabka sida direction of play ka muuqatana waa mid dhibciisu ay goob kasta cawska cagaaran iyagoo ahaayeen kuwa maray
sidoo kale Harry Maguire 34 taabasho hal shoot 22 baas wax taa kale muu samayn hal gool buu dhaliyay sidoo kale 5 loolan oo uu galay shantuba waxay ahaayeen kuwo uu ku guuleystay sidii loogu talagalay sidoo kale Bruno Fernandes 54 taabasho 2 shoot 31 baas hal taakal iyo 3 loolan oo guuleystay darablinkiisuna waa ever balse wuxuu ahaa mid shakatooreeyay muhiimdisnimadii Amorim soo dhigay ahayd kubadaha dhaadheer Lucas Shaw 32 taabasho 22 baas iyo 4 loolan oo guuleystay wax shuuda muu tuurin wax taa kale muu samayn wax dariblina isagana haba sheegin sidoo kale Brian Mbeumo isaguna 32 taabasho 3 shoot 15 baas hal gool wax loolana muu samayn wax dariblina muu samayn balse direction of play-ga hitmapkiisu waxa uu ahaa mid runtii sidii loogu talagalay u dhaqaajay kooxda oo Van Dijkna qalbada jabiyay maalintan maalmaha ka tilmaaman haddaba kulanka waxyaabihii laga yiri markaynu isdul taagno Roy Keane afiya labadii daan ayuu yeedhay Roy Keane waxa uu ku leeyahay marka tahay difaac dhexe oo weyn oo kooxda hoggaan u ah sanadkii horena lagu sheegay inaad sii joogayso adiguna aad saxeexday heshiis weyn haddana kooxdaadu goolal badan laga xidho waa inaan ku weydiiyaa maxaad meesha ka haysaa shaqadaaduse maxay tahay Keane ayaa sii watay hadalkiisa isagoo ku eedeynaya Van Dijk hogaamin la'aan aan xiniyo ku dhisnayn waa inaad is eegtaa marka hore 2 sano ka hor waxaan dhaleecaynayay Man United inay difaac ku gasho garoonkan laakiin maanta waxay dhaliyeen 2 gool sanadkii horena sidoo kale 2 adigoo difaac dhexe ah oo xaadira maxaad ugu waayaarki weyday haddii aad tahay hogaamiyaha kooxduna si joogtaa goolal u luminayso waa inaad isweydiisaa ma cadowgaad caawinaysaa mise cadowgaad garba u tahay mise kooxdaada ayaad cadowga ka celinay hadallada Kane ayaa ka turjumaya niyadjabka taageerayaasha Liverpool ee ku aadan difaaca kooxda oo ah mid ballaqan xilli ciyaareedkan halka United ay u dabaaldegayso guul kale oo muhiim ah oo horyaalka Premier League Amoromna shaqada ku sii adkeynaysa sidoo kale Ruben Amorim daha ayuu ka rogay hal wax oo u suurto gelisay inay kooxda Liverpool garaacaan waxa ugu muhiimsan waxay ahayd in ruuxdii kooxda la arkay taasina waa bilowga wax kasta mararka qaarkood waxaad ciyaarta adigoo kubadda haysta mararka qaarkood adigoo aan haysan balse haddii aad ruux iyo niyad is leedahay waxaad awood u leedahay inaad guulaysato ciyaar kasta tababaraha reer Portugal ayaa intaasina ku daray dabcan waxaan u baahanahay waqtiyo gaar ah inaan goolka hore u dhalino gool hayu uu sameeyo badbaadin muhiim ah iyo fursado aan ka faa'iideysano marka arrimahani ay dhacaan ciyaartoydu waxay bilaabaan inay rumaystaan inay guul kasta suurtagal tahay guushan waxayna siin doontaa kalsooni toddobaadka soo socda waxay farxad weyn u tahay taageerayaasheena u qalmay guushan kadib natiijooyinkii niyadjabka lahaa ee Grimsby iyo Brentford guul sidan oo kale ah waa mid muhiim u ah laakiin ciyaartani way tagtay waa inaan diiradda saarnaa mustaqbalka iyo wax walba oo isbedeli doonaan waqtigan kadib guushan ayaana tii labaad oo xidhiidha ay United ka gaadho kooxaha lagu naanayso Big Six-ka ee Premier League tan iyo markii Amorim uu xilka la wareegay taasoo kooxdana ka dhigtay inay 2 dhibcood oo kaliya ka hooseyso 4 kooxood ee ugu sareysa Harry Maguire isaguna wuxuu si lama filaan u magacaabay ciyaaryahanka sababta u ahaa garaacista Liverpool waa inaan si daacad ah u dhahnaa aad baan ula dhacnay Sane Lemens ma rabo inaan buunbuuniyo sababtoo ah wuxuu ciyaarayaa booska ugu adag kooxda booska goolhayaa kaas oo leh cadaadiska ugu badan laakiin run ahaantii wiilkani wuu dhammaystiran yahay wuxuu leeyahay dabeecad iyo shakhsiyad wanaagsan Lemens ayaa ciyaarta ku sameeyay 5 badbaadin oo muhiim ah isagoo ka hortagay in kooxdiisa laga dhaliyo in ka badan 1.25 oo loo filan karo 90 daqiiqadood in gool lagaga dhalin karo taasoo ahayd mid door weyn ku leh guusha shadaadinta bandhigiisa ayaa soo jiitay taageerayaasha iyo khubarada kubadda cagta iyadoo ay muuqato in Man United ay heshay goolhaye mustaqbal leh oo lagu tiirsanaan karo mustaqbalka dhow xidiga Deelayd isaguna waxba kama habran waxaanu sheegay inuu hogaaminayay difaaca United ee qaab ciyaareedka 3-4-2 ee uu dejiyay Ruben Amorim ee kulanka kadib waxa uu dhawaaqay markii kulankaasi soo dhamaaday waan ogeyn inay Liverpool daciif ka tahay meel gaar ah taasina waa difaacyadooda garbaha kooxda Man United ayaana si degdeg ah uga faa'iideysatay fursadaas
xidiga Mbeumo uu dhaliyay goolka furitaanka waxay ku tusinaysaa inaanu targetkayagii gelin horeba aanu gaadhnay. Garbuhu waxay haayeen kuwa baneeyay difaacashadoodii. Goolkaasi hore ayaa dejiyay habkii ciyaarta ee United, taasoo u suurtagelisay inay maamusho iyo wixii aanu ka rabnay kulanka gudihiisa. Hadallada Diileed ayaa sii kordhiyay cadaadiska saaran Liverpool oo hadda la kulantay guuldarro afraad oo xidhiidh ah, halka United ay guushan u erseetay qaybta sare ee kala sarreynta. Waxaana Diileed ku leeyahay garbaha waa sababta keliya Liverpool lagu dhaliilayo, way ballaqan yihiin. Van Dijk in la eedeeyo waxaa kaga daran labadan ridood ee ku ballaqan. Kadib ballaqaasi wuxuu sababay Van Dijk khalkhalaad iyo kubadii dhaadheeraa u necbaa ee aan ahayn 1-by-1ka in dhinaciisa ay kaga yimaadaan. Ninkan xariif kuma aha Van Dijk la yiraahdaa, sababtoo maxaa yeelay waxa uu wajahaa kaliya weeraryahanku markuu kubadda la soo socdo. Haddii laakiin kubadda la daba dhigo ama la daba mariyo calayha waa uu ku daayay. Waa maalin kale oo Liverpool gabal baas u dhacay shadaadinta leenahay Tudnes Palatacione, Harry Maguire-na Jesus, Elliot Roche, Cheswa, reer Liverpool ma garan karo waxay ka sameynayaan iyagu xaalkani, waayo se waa la isla wada ogaaday ballaqaadooda. Real Madrid habeen kale oo 80ka wixii kor u dhaafay ay baxsatay gool ay kooxda Gaddafi uu Mbappe ka dhaliyay. Wiilkani waa wax kale. Hoggaanka mar kale way la wareegeen. Mbappe se 11 kulan oo ciyaaray 15 gool ayuu dhaliyay, 4 caawin ayuu ku ahaa. Habeen uu kooxda furtay cadcadka yiri dhowl cadayntu ma ahayn mid inaga bargoaysa haddii Clasico soo dhowdahay. xubintu waa kariskii. Anigu waxaan ahay Maxamed Tirike. midda xigtaynteenu ku kulmi doono la iskirseeyaan lagu karsan.